Assalaamu calaykum. Daawada ku soo dhawow sheekadii basaasnimo ee ku kaceen ninkii iyo xaaskiisa u dhashay dalka Mareykanka. Qaybtii koowaad ee dhacdada ka hadlaysa nin iyo xaaskiisa oo u dhashay dalka Mareykanka oo basaasnimo ku kacay. Waxa aynu ku hakinay iyadoo haweeneydu ay aqalkeeda ka soo xireen howlwadeenno ka socda xafiiska hay'adda dambi baarista ee FBI-da. Halka ayaana ka sii aabaqaadi doonaa qaybta labaad ee la socod wanaagsan. Haddii ay ku dhaaftay qaybtii koowaad, waxaanu soo dhigi doonaa commentiga ugu horeeya. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir. Haddii aad hore saaxiib noola ahayna, like iyo share basaar muuqaalka si ugu mid noqdo kuwa ugu daawashada badan. Sidoo kale, subscribe saar barta aynu YouTube ku leenahay Rogal Media. Mahadsanid. maxbuusada Mario del Rosario Casas Amis oo 41 sano jir ahayd waxa ay ahayd xaaska sirdoonka caanka ahaa ee Aldridge Hazen Amis oo isaguna la xiray subaxaasi. Markii xabsiga FBI-da la keenay, waxa la fariisiyay kursi loogu talagalay oo la dhigay qol yar oo aan daaqad lahayn kuna dhex yaala xarunta xabsiga magaalada Alexandria ee gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Waxa markiiba loo xiray dharka doogada ah ee jeelka oo ay ka dul xirnayd shaar cad iyo kaba iyaguna cadaan ah. Timaheedii dheeraana waa la gaabiyay isla markiiba. Waqtigaasi Rosario wajigeeda wuxuu u muuqday sida qof xanuunka geeridu hayo. Indhaheedu ayaa ka marakacay xaaladda ay ku jirtay. Waa ay casaadeen hoosna way u dhigaysay iyadoo ka fikiraysay in maalinta Jimcaha lagu xukumo inay geysteen dambiyo basaasid iyo canshuurta dawladdu oo ay khiyaameeyeen iyada iyo ninkeedu. Wadaxaajood dhexmaray iyada iyo garyaqaan loo soo diray. Waxa ay qirateen dambiga ah in ay basaasad ahayd iyo in canshuurta dawladdu ay khiyaameeyeen iyada iyo ninkeedu. Ninkeeda waxa lagu tuhmayay inuu yahay basaaskii ugu caansanaa ee taariikhda ku kaca falal burinaya CIA-da iyo qaranka Mareykanka, isagoo sirta bixin jiray una dusin jiray dalka Ruushka. Waxaana xukunkiisu noqon karaa xabsi daa'in. Laakiin iyada marka la eego heshiiskii qirashada dambiga, waxa ay wajahaysaa xukun ugu yaraan noqon kara 63 bilood. Waxaase garsooruhu ikhtiyaar u leeyahay inuu xukumi karo ilaa 10 sano oo xabsi ah. Hadda waxa ay heshay qareen cusub, Johan Holm, oo ku casuumay 2 wariye, wargeys iyo telefishin ka socda, kaasi oo doonayay inay wareysi ka qaadaan inta aanu xukunka lagu ridin. Xaakinka Gulud Hilton waxa uu sheegay in marka qisada ay dhinaceedu si dhab ah uga hadasho inuu qaadiga Hilton ula dhaqmi doono si naxariis leh. Waxa kaliya ee la gudboonay waa inay si taxadir leh oo run ah wax u sheegto. Waxa ay si fiican oo degdeg badani uga hadlaysay luqadda Ingiriiska iyadoo joogsi aan lahayn, iyadoo asalkeeda u dhalatay dalka Colombia. Sababtuna waa iyada oo ka mid ahayd miraha ardaydii wax ku baratay dugsiga Mareykanka ee ku yaallay dalka Colombia, gaar ahaan magaalada Bogota. Su'aal kasta waxay ugu jawaabaysay si wanaagsan iyadoo 1 daqiiqo oo sharaxaad kooban ay ka bixinaysay, maadaama faahfaahintu ay tahay waxa kaliya ay ku badbaadayso. Waxayse mararka qaarkood u muuqanaysay mid wareersan oo ka naxsan xaaladda ay markaasi ku jirtay. Waxa ay ku kacisay inay su'aalaha qaarkood diido iyadoo oo caraysan oo waliba murugo ka muuqato. Taasi isaga weydiiya, maxaad anigu arrinkaasi ii weydiinaysaan? Maxafiiskiina ayaan ka shaqeeyaa oo aan wax ka ogahay. Iyadoo caraysan oo quusi ka muuqato ayay kelmadahaasi afkeeda ka soo baxayeen. Intaas ay noo joogto qaybta labaad ee warbixintii ku saabsaneyd dhacdadii basaasnimo ee ay ku kaceen nin iyo xaaskiisa u dhashay dalka Mareykanka. Fadlan haddii aad la dhacdo u sheer garee saaxiibadaadu si ay iyaguna u daawadaan. Mahadsanid.